daawade waa family oo dhan, hooyo caruurteeda iyo ninkeeda oo muddo ku taamayay inay waddankan ka tagaan ay u guuraan waddan kale, kadibna markay ku guuleysteen inay waddankoodii ka tagaan waddan kale nolol fiican ay ka helaan ayaa ugu dambeyntii diyaaraddii waday yaa la dhacday. kadibna waxay meesha ku waayeen nafsadoodii oo dhan, dambas ayay naqdeen. daawade barnaamijka intaa ugu dagelin waxaan kaa codsanaya inaad share like comment barnaamijkaad ka bixisid si uu meel fog gaaro, anigana waxay tahay dhiirigelin mahadsanideen. daawade ninkan aad aragtaan iyo caruurtiisa waxay kasoo jeedaan waddanka Hindiya. odaygan wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska, shaqa ayuu ka hayo, wuxuu ahaa daktar. muddo ayuu wuxuu ku taamayay inuu caruurtiisa Hindiya ku nool iyo xaaskiisa uu usoo guuriyo waddanka Ingiriiska, balse carqalado badan ayaa ka hor istaagay. sanadooyin ayuu ka daba wareegay. wuxuu ilaahay u fududeeyey inuu muxuu ahaa asige uu ka helo deganaasho waddanka Ingiriiska oo muddo uu ka daba wareegay. kadibna way u aqbaleen inay deganaasho siiyaan. kadibna isaga oo aad u faraxsan ayuu wuxuu kasoo duulay garoon ku yaala waddanka Ingiriiska, wuxuuna kusoo degay garoon ku yaala waddanka Hindiya. kadibna wuxuu nolol fiican la qaatay oo farxad ku dheehan tahay familkiisa. kadibna wuxuu u sheegay in maanta wixii ka dambeeya aysan joonin waddanka Hindiya, ay u guuri doonaan waddanka Ingiriiska. daawade ninkii markuu waddankiisa imaaday uu u sheegay familkiisa inuu guurin doono waddanka Ingiriiska, ayna degi doonaan, nolol fiican ay ku noolaan doonaan. maxaa dhacay? tigidii ayay koosteen. gabadhii caruurta ayay sharciga ka keensashay, iyada sharciga iska keensashay, maxaa yeelay sharci kale ayaa diyaar u ah oo Ingiriiska ah. tigidii ayay koosteen, waxay diyaar u noqdeen inay ka duulaan garoon ku yaalo India. markay boorsooyinkooda xirxirteen oo safarkooda diyaar u noqdeen oo ay aadeen garoonka diyaaradda, kadibna loo ogolaaday inay diyaaradda gudaha u galaan. kadibna diyaaraddii ay kacday. muddo yar ka bacdi 5 minute meelahaas oo kale ayaa waxaa dhacay shil. diyaaraddii ayaa waxay noqotay dambas, waxna kama badbaadin. waa qiso xanuun badan. dadkan waxay rabeen familkan inay ku raaxaystaan waddanka Ingiriiska, tii allana meel ayay taallaa. waad u jeedaan, dad ayaa hadirtaan waxay ka fikirayaan inay mustaqbal fiican gaaraan, balse ma oga wixii ku dhici doono. mar walba oo aad mustaqbal aad rajeynaysid, ku darso inuu ilaahay ku gaarsiiyo, inuu ilaahay muxuu asiga meel khayr badan ku geeyo. ma aha in aad niidaada geshitid muxuu asiga meeshaas ayaad waxaad ku noqon doontaa taajir. daawade waa dhacda xanuun badan. barnaamijka halkaan ila soo gaartay, waxaan kaa codsanaya inaad share like comment barnaamijkaad ka bixisid si uu meel fog gaaro, anigana waxay tahay dhiirigelin mahadsanideen.